ugu dambaysiinaya waxa uu yahay waxaan soo marnay 12kii bisha afraad Abriil ee dhismaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya dhinac marka laga fiiriyo ciidan inuu ku dhisan yahay waa sharaf iyo amaano waa sharaf iyo amaan dhinaca kale marka laga fiiriyana shabaab inay maanta jaziira haystaan oo Puntland ay dhex joogaan oo galmudug ay nus haystaan oo Hirshabeelle aan gawaari la isaga dhex raaci karin oo xamar iyo jowhar diyaarad la isaga raacayo bale waaba dhif iyo naadirba marka laga soo tago labadan maamul Somaliland iyo Puntland meesha la yiraahdo wadanka intiisa kale diyaaradan ba facilities u noqday limaada dhulkii baladaas baa soo shuftada baa ku jirta marka ciidanka loo dabaaldegayo walaalayaal oo sanad guuradiisa loo hambalyeeynayo waxa fiicnay inay noqoto dabaaldegu guul ee aysan noqonin gutiris 62 ciidanku waa gaareen laakiin maxay ku gaareen ma ciidankaad ku rabti garayseen siyaasadda u isticmaasheen qabaa'isha u adeegsateen ee goobo nabad inta la geeyay loogu duulo lagu baabi'iyay shabaabna aan dadka ka dhicin karaynin kuwii dhufayska joogeen ay ku dayacan yihiin oo aysan haysanin siyaasad jihaysa iyo mabda ay ku duulaan iyo caqiidatul harbi lagala dagaalamayo ma ciidankaasa waxa weeye ciidan dabaaldeg in loo sameeyo ay tahay mise waa ciidan in loo tacsiyeeyo mudan yani waxaan leeyahay ciidankaasi waa dadaaleen xilkoodina waa guteen laakiin siyaasi faashil ah ayaa fashiliyay ciidanka uu isticmaalka loo isticmaalaya qaabka ay yihiin ayaguna ma qabata annaguna kuma eegan karno loo isticmaali karaa ilaahay marka inta laga boqo amaanadii saxda ahayd ha loo soo jeedsado shaqada dayacan ceeb waxaa ku filan ciidankii tarabuunka intay soo maraan waddanka oo wada furo loo dabaaldegi jiray markay marayaan meesha iyada ah in waxa weeye lagu soo xiro ganjeelooyin oo inta dabaaldega suubinaysa intii la mid ama ka badan ay waardiye ku jiraan intaasoo bilood oo ilaalinayaan meesha inaan qarax lagu xirin adeerow shaqada saxda in la qabta la rabay ma aha in la maro waxa weeye in salaan la kala qaatiyo in la gaardiye waxay ahayd ciidanka ammaan ay banaanka intay ku maraan tuutaha dhigaan ay bakhaayadaha kafee kaga cabaan in loo sameeyo ayaguna ay ka shaqeeyaan waxaasan doonaynaa in la sameeyo wax laga qabto waana dishay oo runtii waa dhibsanay oo waa ka daalnay ceeb inta horteena lagu sameeyo in la aamuso oo la yiraahdo shibdhe hebel baa xanaaqay hebla ya xanaaqays war annagoo dhan baa xanaaqsan annagoo dhan baan performancegeena raalli ka ahayn diinna ma haysaan dowladnimada ma haysaan dayac baana meesha yaallo in lidin aamusana waa rabtaan xaggee baad ka helaysaan shabaab baa dad ka dhicin laadihiin oo weliba xan baa soo baxayso waxaan leeyahay waa la wada shaqaystaa war ninkii dowladda ii ahaa markuu tuugadii la shaqaysto aniga aw dowladdayda waayo qofkii matala ii sheega qaraarulmasiir miyaanan xaq u lahayn miyaanan tayda ka fikiri karaynin intaysan ummaddu idinku soo jeedsanin wax laydinka sii jeedsa sameeya oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala say tahay ha loo dabaqo dadka ammaanada iyo xilka loo qaadayna ha laga dhabeeyo waayo taasaa maantana lagu wada xisaabtamaya berrina alla uu idin weydiin doonaa subxaanahu watacaala